السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي قالوا كسر وهذا مركز يعني بتجي يوتيوب channel كذا كعصبت سبسكرايب ده هدي أنا ليش وتنو نسيتوك فيديو كان لايك ده شير هذا كم تيجون بوارك تدينا صاحبي قالوا اسكسر نقد ونكسن صاحبي قالوا إن بدن أيام كلا رجني معلومة أبديت ما أنا هين وأنا سكير مشغولي لكن هذا أيام دي بصلابتي صاحبي فيديو كمان توحنا وهذا دونا أبديت ك BS 2021 أو لو بدري دونا eFootball 2022 كاس أصلي official على لغة واقعي إن لا أبديت كرين دونا waxaan la update kareynayaa labada bisha lixaad sanadka 2022 saaxiibayaal waxa jireen update badan oo dadku isla dhex marayaan oo dhahayn game ka san ayaa laga dhigayaa san ayaa laga dhigayaa laakiin aniga 6 bilood ka hor ayaan ka hadlay qaabka markaas update-kiisa laga dhigayo iyo waxyaabaha laga bedelayo waxyaabahaasna waxaad ku arki doontaa videogan linkigan hadii aad ku dhafatid video ayuu ku geynayaa videogaas ayaa daawan kartaa waxyaabaha laga bedelayo iyo qaabka uu noqonayo صاحبي الواحد بدن أيام سوينا جيم إن مرة لا أبديت كريه أو لقى دقة eFootball 2022 كاس أي نقول على جيم كواحد لقى دقة دونا واحد نوع كلا generation نوع كلا أيام لقيلينا يا يعني الدون كعصم الله كان قاعد كرايا لقى دقة يا أنت أي مرة والبق مسج كوسو قرآن أي قرده هاي جيم كدول قاضي يشا واحد دقة دونا جيم نوع كلا يعني أبديت كيسو حياة بدن يعني كبدل دونا لكن هذا أنا أركينا مركز waxa ay ku soo dari doonaan marka la gaaro bisha labaad bisha markii la gaaro bisha lixaad labadeeda waa bisha June dhowr waxyaabo oo muhiim ah ayaan ku soo qaadan doonaa setting ayaan ku soo qaadanaynaa marka koobaad setting waxa la dhahaa qaabka aad game-ka u dheeshid oo kale in laacibka oo tackle bixina oo kale magaca aad kooxda ku samaysatay oo kale waxyaabahaas dhan waa la set gareynayaa hadhow markii game-ka soo update gareysatid markaas ayaa dib u setting gareysan kartaa kuwaas waa la set gareynayaa sidoo kale achievement ama guulaha hadii kooxda guulaha ay ku save gareysnaayeen qof aad ka badisay inta marad badisay waxyaabo dhan ayadana hadda iyo ku ayaa dib u soo bilaabaysa waa la set gareynayaa waa la reset gareynayaa oo waa la baabinayaa hadda ayaa dib u soo bilaaban kartaa sidoo kale hadii laacib aad training u sameysay oo asagoo 90 ay 90 something ka dhigtay oo aad wax update gareysay manager hadii aad awoodiisa ku dartay waxyaabaas ayagana reset ayaa lagu sameynayaa hadda iyo ku ayaa dib u soo bilaabaysa ayadana sidoo kale coinska oo BS-ka oo hadda haysatid coinska magaca ayaa laga bedelayaa oo waxa loo bixi doonaa eFootball coins ayaa loo bixi doonaa laakiin sidooda ayaa lagu qaadaya oo xagga markaad tagtid hadii 100 ay kugu jirtay xagga 100 eFootball ayaad ugu tagi doontaa sidoo kale GB-ga wax ma isbedelayaan sidiisa asagoo ayuu xagga aadayaan wax ma laga bedelayo sida laacibinta oo kale waaye sidoo kale legend hadii ay ku joogan legendayaasha hadii ay ku joogan waxa loo bixi doonaa dhamaantood waa la isku daraya waxa loo bixinayaa legendary laakiin hal wax ay markaas ku kala bedelanayaan hadii uu ku joogay Ronaldinho oo legend ah iyo Ronaldinho oo ah macnaha iconic midka iconic-ga kalarkaas ayaa loo yeelayaa laakiin waxa isbedelay waxa weeyaan in magacii laga tiray iconic ama kaarkii laga tiray oo kaarkan kale loo bixiyay legendary ayaa la isku dhahaa laakiin kuwii iconic-ga ay wada u jeedaa way ka duwan yihiin oo labadan nooc ay isku kala bedelayaan oo legendayaashii noocan ay noqonayaan معناها ايكونيك جينا نوعا اي نقونايا markaas sidoo kale waxyaabo lagu soo kordhiyaa waxa kamid ah markii aad rabtid laacib in aad contract u sameeysid in ay jirto waxyaabo oo contractiga loogu talagalay oo markaas aad u isticmaali doontid in aad markaas contractiga aad ugu kordhisid halka meesha ay hadda raayay 10 in oo halkii marba 10 ka wadigi kartid waxa ay noqon doontaa 60 waxyaabo kale ayaa jira markaas oo laga bedelay game-ka oo markaas video hore uga soo hadlay hadii aad videogan soo daawatid xagas ayaad ku arki doontaa waxyaabahaas oo dhameystiran intaas ay markaas ku sheegan in game-ka lagu update gareynayo laakiin muhiimadda ayaa waxay ahayd in aan idinla wadaago in game-ka la update gareyn doono taariikhdaas oo ah labada bisha lixaad waa bisha June aad iyo aad u mahadsantihiin saaxiibada qaaliga intaan videogan waxa ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh